iyadoo guud ahaan dalka ay ka socdaan dadaalo lagaga hortagayo xanuunka dunida cabsida ku haya ee coronavirus ayaa maanta warshada saabuunta ee Ilays waxa ay noqotay shirkadii ugu horeysay ee si toos ah uga qayb gashay dadaalada lagaga hortagayo xanuunka coronavirus waxaana ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku wareejiyeen agab saabuun ah oo tiro badan oo loogu talagalay farxalka si looga gaashaanto xanuunkaasi ugu horreynna mas'uuliyiinta ka socotay warshada saabuunta ee Ilays ayaa ka hadlay agabkaasi ay maanta ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka anaga ka socda shirkadda Ilays ee Soomaaliland taasoo soo saarta waxyaabo badan oo kamid ah nadaafadda ayaa waxaan ugu deeqnay wasaaradda caafimaadka 105 kartoon oo ah hand wash oo noqonaysa 2580 xabo taasoo aan ugu talagalnay in ay aan ku wareejinay wasaaradda caafimaadka marka halkan waxa marayoonu dhignay 105 kartoon oo ah hand wash taasoo loogu talagalay nadaafadda inay wax ka tarto halkan maanta warshada Ilays waxay ku wareejinaysaa qalabkan in hor yaala oo istoodhadii lagu soo rogay kanuna muunadii yahay 105 kartoon oo loogu talagalay in gobolada iyo xarunta wasaaradda la siiyo oo lagu qaybiyo marka wasaaradda aanu ku wareejinay waxaanu ka qayb galaynaa marka maxaan ku raadaya hawlaha socda ee caafimaad alaabtan waa alaabtayadeedu aad u sareyso maxaan ku raadaya waxay guud ahaan isku noqonaysaa 2400 oo mid ayay isku noqonaysaa midkiiba ilaa qof maxaan ku jeer baa lagu farxan karaa ilaa 700 ugu yaraan 500 oo jeer baa lagu farxan karaa markiiba marka waxaanu ka qaadanaynaa hawlaha caafimaadka ee loogu jiro ayaanu ka qayb qaadanaynaa warshada oo waxyaabo badan oo kale dadka u qabata isla markaana alaab quality leh oo maxaan ku raadaya soo saarta maxaan ku raadaya dhaqaalihii dalkana dollarkii u bixi jirayna sameeyo wax soo saar shaqo abuur u sameysay waxa kale iyaguna halkaasi ka hadlay xubin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi maxamed cabdi xergeeye oo isagu u mahad celiyay shirkadda Ilays waxaana uu bogaadiyay sida ay uga qayb qaadanayaan ka hortagga xanuunka coronavirus waxaana uu bulshada u diray fariimo la xiriira cudurkaasi saaka intaan ku leenahay waxa way koow arintan oo muhiim ah oo ah qaybta farxalka iyo fayadhowrka taas oo ah waxa ugu muhiimsan ee maanta la qabanayo ama gobolka ama meel kastaba ka socda marka waxa weeyaan runtii waxa weeyaan farxalka oo ah waxyaalaha number 1 ka ah dawo kale iyo waxa kale ma jiraan isagoo marka horeba farxalka marka saani loo farxashay faraaga taanu meedid haday tahay shuban iyo haday tahay xanuunkanba oo waxyaalaha ka hortaga ama yareynaya waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo warshada Ilays iyo madaxdeeda iyo hawlwadeenadeedaba sida waxtar kale ay uga qayb qaateen hawsha qaran ee ah hawsha aynu baryaanba ku hawlanayn ee hawsha emergency-ga ah ee ka hortagga xanuunkan coronavirus la yiraahdo ka hortaggu uu ka wanaagsan yahay daaweynta waxaynu ognahay sida qura ee aynu bulshadeena ku badbaadin karnaa inay tahay inaynu sameeyno ka hortag inaynu u diyaar garowno inaanu xanuunkaasi ilaahay inaguma keenay aanu dhulkeena soo galin in aynu ilaalino nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar intaba waxay wax weyn ka taraysaa inay si waxtar leh uga qayb qaadato dhaqidda gacmaha amba maydhidda gacmaha ee farxalka iyada oo siyaalaha oo xanuunkani ku fidayo ugu horeysa ama ugu muhiimsani ay tahay taa uu qofku uu taabashadii intuu wax taabto ama qof kale salaamo amba meel xanuunkii lagaga tagay uu taabto haddana uu afkiisii iyo sankiisii u gaarsiinayo warshadu waxa ay fahantay wixii ay wasaaradda horumarinta caafimaadku u taagnayd wixii qarankeenu u taagnaa waxay qayb weyn ka qaateen in ay ka soo baxaan qaybtii ay ku lahaayeen in ay bulshada kala qayb qaataan ka hortagga waxay noogu deeqeen 105 kartoon oo ah hand wash ka aad arkaysaan oo ah
antibacteria iyo antimicrobes ba oo si fiican u dilaysa wixii bacteria ah iyo wixii virus ah iyo wixii jeermis ee gacmahaaga soo raacay waxa kale oo aan bulshada kula dardaarmayaa inay isdejiyaan ilaa imika inaga wax case ah ama wax xaalad ah oo xanuunkaas ah oo dalkeena soo galay ma jiro ilaahayna waxaan ka baryaynaa in aanu sidaa inoogu keenin laakiin wadamadii deejaarkeena ayuu cases lagu arkay marka waxaynu sii libin laabaynaa dadaalkii aynu ka hortaga aynu u wadnay waxaan kula talinayaa dadka inay qaataan amaawiirta shaqaalaha caafimaadka in dadkeena soo noqonaya ee ka soo noqonaya meelaha uu xanuunkani aadka uga jiro inay nagala qayb qaataan horumarinta ay iska joogaan inta uu xanuunkani adduunyada ka yaraanayo waa talo waxaad u imanaysaan waa dadkiinii xanuunkana waa xanuun si degdeg ah u fidaya waxa aan jecelahay inuu dadka reer Somaliland ee ku soo noqonayo dhulkoodu ay joogaan meelaha ay imika joogaan waa taladaasi waa talo ay bixinaysa wasaaradda caafimaadku oo aanay haddii mar walba iyada oo lagama maarmaan noqoto mooyaane inuu qofku halka uu joogo oonu iman haddii uu yimaado oo uu ka yimaado wadamada uu xanuunku aad uga jiro waxa uu gelayaa 2 week oo karantiin ah سعيد هذا جامع تلفزيون كون كيبل هرجيسة adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida